السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي سلامية وولاشي فرحي لكي يوتيوب كأيلا سعتان وفرحي لكي إن شاء الله تعالى ذاتكي هورا إيلا جوغي وحان ليا وما سنتهين إن فيديو قان صولي قدوان هدو إذن قنعي إن شاء الله تعالى لك سارة إن شيرني إسي لها كومنتي الآن تنهالي قدايا إن شاء الله waxaan soo dhigay inay wax dadka xiiso galiyo inay si dadka xiiso galiyihiin ma kala garan karo marka insha Allah commentigu waa muhiim like share ina idaadan muhiim insha Allah taala dadka cusub oo arki doona YouTube kayga ina soo booqan doona fadlan waxaan ku leeyahay walaalkay qaaliyo ama walaashii qaaliyay waa ina subscribe idahdaa like iyo share na idahdaa commentigana aad isoo qortaa wixii markaas aan ka hadlay inay ku xiiso galiyeen inay ku xiiso galin intaba insha Allah taala Soomaalinimada ku jirto in la iscaawiyo aan iscaawino subscribe na wax weyn ma ahan wax badan kala tagay insha Allah subscribe ina idahdid isku day insha Allah wiilka ama gabadha Soomaaliyeed isbuuc hore waxaan soo qaadanay qiso jecel oo la magac baxay jaceelkii qabiyoobay insha Allah taala waxaan dhameystiri doonaa maanta qaybteedii labaad hadii Allah wado waxaan maanta soo jeedin doonaa dhahe afwan qaybteedii labaad waxay noqon doontaa qayb aad iyo aad u xiiso badan waayo shalay waxay ahayd wiilka kaliya ayaa wax rabay laakiin maanta gabadha rabitaanka ay ku dhashay qisaduna waxay noo maraysaa habeenkii loogu dambeeyay iyadoo gabadhii banaanka u baxday jardiinka soo fariisatay jardiinka markay soo fariisatay kadib maxaa dhacay waxa uu yeedhay wiilkii uu u yimaaday markuu u yimaaday kadib sheeko dheer meeshaas isfahan habeen ka dhacay oo waa la isfahmay oo qof kale inuu daneynayo qof walba qof kale uu jecel yahay Samiirey Maxamed ayaa ka dhacday aad iyo aad ayay noqotay sheekadooda mid u xiiso badan soo wixii xiiseynaysa inuu la joogo in badan oo la qaato ay xiiseynaysay meesha waxa ka bilowday jacayl ugu oo waliba labada dhinac waxay noqotay waqtiyo badan in la isbalansado qof walba qof kale oo xiiso qabo telefonku inta yar sida maanta dhalinyaradu u qaadato shalay looma qaadan jirin xoogay gabdhaha maanta sida ay yihiin oo yani u horumarsan yihiin gabdhihii 2005 2006 2003 ilaa 2004 jir sida ma ahayn maanta marka insha Allah taala waxa dhacday caawa kale markii la kala tago habeenkii la balamayo kale waa la sii balansan jiray waxay suugaysay dhankeedii gabadha Samiirey ahayd in ay xilligaas balanta ay waxay joogto xilli walba oo aragto ay daneysay waxa dhacday inay wiilkiisii jaceelkeedii kay ayadu markaasito ay أول لو قبي كي هذا أيضا قبته كي أيضا قبته إنه أود بديو واحد عضي إن مركز بهته ويلكي قبلي سميري محمد أي حافظ يقولون إسكو قاعدين إني لوقف استعيدهم كذي بهذا عيد دول مئات وبضنا دعي قبلي وحي هاد قبر أبو في الفرعون رهانتي آدي آدو أدر بدن إسكنا معقول قرح بدن wiilkaasna wiil qurux badan ayuu ahaa way isticlaayeen marka dadkii oo dhan waxay ku noqdeen cadow xaafadda la deganaa maadaama dadkii dhan ay cadow ku noqdeen oo dadkii markii uu jaceelkoodu uu hirgalo oo dad isku fiican ay yihiin Soomaalidu inta badan waxay taqaanaa inay ka dhex shaqeyso inay isku dirto inay waxyaalo dhib u geysto waxaa jirto markay isku fiicnaayeen oo sida isku wanaagsanayeen habeenada kamida waxaa soo dhexgalay oo qorshe loo soo dejiyo waliba qiyaano ahayd in wiilkii maanta oo kale ayaa la ciiday Ramadaan ayaa dhamaaday soona la galay soo gadhow isku fiicnaayeen Ramadaan ayaa dhamaaday maanta oo kale intuu Ramadaan dhamaaday maanta oo kale waa la ciiday markii maanta oo kale la ciiday ayaa waxa dhacay habeenkii gabar soo ciideysatay oo reer dariska u soo ciideysatay waliba wiil asaga markaas isku dhawaayeen Maxamed ee saaxiib ahaayeen ayaa waxa u soo ciideysatay reerkooda gabar kaga timaaday degmooyinka Muqdisho ku yaala degmo kamida kadib gabadhii iyo wiilkii iyo
asxaab kale oo gabdhihi wiil isugu jiro waxaa la fariistay banaanka guriga eridiisii markii la fariistay asagoo waa ka daacad gabadha imaadana waa ka daacad laakiinse shirqool ay ugu soo talagaleen dhalinyaradii xaafada deganeed ayay ahayd markaasi waxay sameeyeen tartiib ayaa loo kala siibtay waxaa isku soo haray labadoodii oo kaliya markay isku soo hareen ayaa waxaa dhacay Samiiro ayaa qof loo soo diray markaasi kala caawa kala karinaysa saxuur ee u karinaysa aabaheed Allah u naxariistee markaas soo mirabay wadaca soo maanta kale markii la bariyo kale wadac ayaa bilaabanay wadac ayuu soo mirabay marka waxaa la yiri Samiiro hay iska waran fiicanta waa iska alxamdulillah waan ladana ma sha Allah waxba ma ogid ninkii Maxamed ahaa caawa halkaan uu bal fadhiyaa gabar tii adiguna saaxiibka ahay jaceelkii idinka dhaxeeyay maxaa dhacay ruuxantii way naxday gabadhii aad ay u naxday kamilaysa weeyso waxyaalaha la sheegayo waxay sameysay way istaagtay waliba iyadoo madax banaan waxay damacday inay banaanka u baxdo dadkii dulmiga waday qof kamid ahay oo gabar ahayd ayaa waxay sameysay maradii iyo madax u saarneed oo iyada uu sanad ay sidatay ayay tiraada talan ku siinaya mar kale ha raadinin chance waaye maanta caawa chance ku haysan ninkan qiyaanoolo waaye kuma uusan daneynin awalba waxa sameysaa marka u tag wuxuu yahay tus waxay sameysay way baxday maradii ka sii qaadatay way baxday banaankii tagtay way isku aragtay maxaa dhacay naxdin argagax waxaan la maleysanaynin waxaa ka soo horjeeda guriga ay wada fadhiyaan wiilkii gabadha guriga ay deganeed gabadhii shalay is bartay way u tagtay oo waxay tiraahday walaalay waxa ila damacsaneed sida tan nolosheeda sidan inay ku soo dhamaato fashilkaani ahayd soo shalay waa is jecleen ani asaga jaceyl aan ku heshiinay jaceylkii aan ku heshiinayna maanta waxa waaye sidana u dambeysay inuu naag kale ugu hoos wado wallahi waa ka xumahay inaan qof noocaas ay keento kaleete way iska soo tagtay gurigooda ayay imaaday gurigooda markay imaaday wiilkii asaga waagii u bariyay inuu arka gabadhii oo maxay ahayd ordayso waliba markuu salaamo walaal Samiiro ay tahay tay korigoos ka fiirsay waxba jawaab siin iyadii iska soo noqotay waxay timaaday jirtiinkoodii way fariisatay oo u noqon weysay sheekadii sidii la rabo u noqon weysay waxay tiraahday hal igu yeero markii loogu yeeray uu soo socday aragtay uu soo socday ayaa waxa soo baxay wiil markaas xaafada deganay oo ahay wiilasha xaafada wiil kamid ahay laakiin si aan dadka dhalinyarada shaqoolkooda ku jirin oo asaga iska waxba ogeyn oo duurka ka yimid magaalada ka yimaaday sidaas daraadeed waxaa dhacday in ay maxay ahayd wiilku u yeerto ay tiraahdo kaale la soo fariiso maxaa jira qolo soo fariistaa waayahay iima aadan yeerin jirin Samiiray dad walaalo islaama ayna caawa qorshaha awood maxay tahay niyo waxay tiri ninkii Maxamed haysaas igu sameeyay wuxuu igu sameeyay shirqool jaceylkaygii iyo wanaagii naga dhaxeeyay meel cidla ayuu uga tagay marka sidaas daraadeed asaga ku xumeynaya caawa ka waa isoo socda ila soo fariiso wuu fariistay soo naf wax jecel dib badan aadana oo ahaan weysay markaasuu ay tiraado artiska baxayeen u yimaadaan doonayay u yimid insha Allah taala imaashaas oo yimaado hadana iyo qaybta saddexaad hadii Allah awood uu yiraahdo waxayna noqon doontaa isbuuca dambe waxaan idinka raali gelinayaa waxay aad balanta in xal idin soo geliyo way dhici weyso wixii xaq alla ka qoran baa dhici kara insha Allah waa mahadsantihiin hadii aad videogan fiirsato haduu ku xiiso geliyo fadlan subscribe ideh like share isar waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idin jeclahay Soomaalidayda aan ka dhashay Soomaalida aan ka dhashay dadkii ugu wanaagsanaa waliba inaad tihiin aaminsanaa insha Allah taala subscribe hadaba subscribe meel cidla yaa la dhigin Soomaaliyeed ka dhashay meel cidla ma yaalay subscribe igu caawiyo insha Allah waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idin jeclahay bye bye